waa tartan ciyaareed bilihii ugu dambeeyay uga socday shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay shirkadda Telesom Group. tartankan iyo qaabku u dhacay iyo gabagabadii oo haatan la taagan yahay cidda ku guuleysatay waxa ugu horeyn ka warbixiyay Cabdirasaaq Cabdilaahi Cali Shabeel iyo Maxamed Cabdi Darbo oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Telesom. tartankan wuxuu bilaabmay 26kii bishii hore October maanta ay 23 tahay November 2018 na inoo gabagaboobay waxa la ciyaaray 15 ciyaarood ayaa la ciyaaray nasiib u yeeshay inay iskugu yimaadaan maanta gabagabadii kooxda ka socotay Zaad iyo kooxda ka socotay Dar es Salaam guush waxay raacday kooxdii ka socotay Dar es Salaam Bank halkan lagu guddoonsiin doonaa koobka ay abaalmarinta u heleen waxa laga maarmaan noqday maadaama ay dhalinyaro badani ka howlgalaan shirkadaha runtiina rag ciyaaraha ku wanaagsan ama dadkii ciyaaraha wadankan qayb leeyahay ka soo qaatay iminkana ku jira fiilka ciyaaraha waxaan la ilaawi karahayn iyagana tiimamkii ka soo qayb galay dhammaan Telesom Group sida Dar es Salaam Bank Telesom Electric Company ama tag Zaad Taj Samgas Kabsan iyo dhammaan iyo Telesom oo iyaduna hooyadii dhashay inay ka qayb gasho wareegaasi saas u socon doona waanu ka balaaran doonaa inta ka badan baanu geyn doonaa dhammaan ciyaartoydii ka qayb gashay aad baan ugu mahadnaqayaa. geesta kale ayana waxa halkaasi hadal isaga dambeeyay mas'uuliyiin ku kala hadlayay afka labada group ee Dar es Salaam Bank iyo Saad Surface oo gabagabadii isugu soo haray tartankan maantana ku finalkii ku kala calaf qaadaan oo Dar es Salaam Group amba Dar es Salaam Bank uu ka guuleysto Saad iyadoo ciyaar fiican runtii meesha ka socotay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bangiga Dar es Salaam Bank oo aan afkiisana ku hadlayo teamkii ka socday siday kartiday muujiyeen xirfaday muujiyeen dadaalkii muujiyeen akhlaaqiyadkii muujiyeen wuxuu runtii ka turjumayo ciyaar wanaag iyo kubad wanaag ay sameeyeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labadii kooxood ee maaragtay finalka isugu soo baxay maanta Dar es Salaam Bank iyo Zaad Surface mar labaad waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa oo aan maaragtay anigoo afkii saaxiibadeedii ciyaarayay runtii finalka u soo baxay Zaad ku hadlaya waxaan leeyahay saaxiibadeyda maaragtay waxa weeyaan Dar es Salaam Bank waan idin hanaynay runtii ciyaar wanaagsan baa ciyaarteen anaguna insha Allah tacaala de ciyaaraha dambe waa la eegi doonaa kulli rag badan oo maaragtay iyaga laftooda runtii ciyaar wanaagsan soo muujiyay runtii halkan maanta kama muuqanin ugu dambeyntiina waxa dareenkooda la wadaagay kooxdii ku ciyaaraysay Dar es Salaam Bank oo gabagabadii ku guuleysatay tartan ciyaareedkan anagoo Dar es Salaam Bank waa markii ugu horeysay aan halkan koobkan aanu gacanteedu soo galo oo aanu qaadno aad ugu faraxsanahay koobka ay ku guuleysanay anagoo metelana Dar es Salaam Bank runtii waxaan bogaadinayaa sida quruxda badan ee koobkan loo soo qaban qaabiyay inankii qaaday gool dhalinta oo runtii Zaad u ciyaarayay guuleed Maxamed Aadan ha ku soo dhawaado si loo guddoonsiyo jaayisadiisa ha soo dhawaado dhammaan kooxda soo dhawaata dhamaantood siirana kooxdii kaalinta labaad ka gashay tartankii gabagabadiisii maanta oo kooxdii Zaad kabtankoodii inuu gudoomo waxa soo dhawaado